war degdega oo naga soo gaaraya gudaha magaalada beled xaawo ayaa waxa ay sheegayaan in hadda xarada ciidanka ee UK ay soo cagdhigatay diyaarad helicopter ay leedahay dowladda federaalk Soomaaliya. Diyaaraddaas oo la sheegay in ay la socdeen saraakiil khubaro oo ka socda Masar, taasi oo ay indhindheen ama ay ku samayn doonaan meelihii ay digi lahayn ciidanka Masar ee maalmaha soo aadan ay soo gaari doonaan Soomaaliya. Inta badan xogaha helina ayaa waxay sheegayaan in ciidanka Masaarida loo asteeyay in ay degaan hordhacooda gobolka Gedo iyo sidoo kale Hiiraan. Inta badan meelaha ay ka degi doonaan gobol Gedo ayaa lagu sheegay Baardheere iyo Galbaharre iyo Beled Xaawo. Haddaba daawad intaan u gudagelin warbixintaas oo dhammaystiran, fadlan marka hore muuqaalka noo qurxiyo like inoo saar. Sidee u aragtaa in ciidan Masar ka socdo ay soo gaaraan Soomaaliya, weliba gaar ahaan gobolka Gedo iyo sidoo kale Hiiraan? Wixii fikirkaada iyo faallada qaybta hoose ee commentiga inagu dhaaf. Waa hagaag. Haddaba sida xogaha ku helinaya waxay sheegaan in xarada ciidanka ee UK ee duleedka magaalada Beled Xaawo ay soo gaareen saraakiil oo inta badan halkaasi ay ku soo dhoweeyeen saraakiisha ku sugnaa xarada ciidanka ee UK ee duleedka magaalada Beled Xaawo. Haddaba saraakiishan ayaa inta badan waxay indhindheen doonaan ama ay asteen doonaan meelaha ay ka degi doonaan magaalada Beled Xaawo ciidanka Masar ee ku soo aadan Soomaaliya. Wasaaradda Amniga ayaa maalmo ka hor waxa ay shaacisay in ay soo gaari doonto Soomaaliya ciidan ka socdo Masar. Inta badanna dowladda Masar ay si toos ah u shaacisay in ciidankaasi loo soo xiray tababarkoodii ayna diyaar u yihiin in ay kala qayb qaataan ama ay soo aadaan Soomaaliya, taasi oo inta badan ay soo gaari doonaan sida xogaha hordhacan ku helino gobolka Gedo iyo sidoo kale Hiiraan. Dhinaca kale, saraakiishan ayaa waxaa si diiran u soo dhoweeyey taliyaha nabad sugidda ee Jubbaland ee dhinaca dowladda federaalk Soomaaliya ee Cabdirashiid Janan, oo maalmihii ugu dambeysay ama bilihii ugu dambeeyay halkaasi ka dhigtay fariisin. Safarka saraakiishan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid indha-indheena ama ay asteynayeen meelihii ay kala degi lahaayeen ciidanka Masaarida ee ku soo aadan Soomaaliya, taasi oo hordhacooda uu soo gaari doono Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Gedo. Inta badan xogaha ah helina ayaa waxay sheegayaan in ciidankan loo asteyn doono meelaha ay degi doonaan ay ka mid tahay sida Baardheere iyo sidoo kale Galbaharre iyo magaalada Beled Xaawo. Sidoo kale waxaa la filayaa maalmaha soo aadan in magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ay ka soo degaan ciidamo aad u badan oo Masaari ah. Dhinaca kale, dowladda Itoobiya ayaa iyadana ka soo horjeesatay in la keeno Soomaaliya, weliba gaar ahaan gobol Gedo ay soo gaaraan ciidamo Masar ama ciidamo ka socda waddanka Masar. Walow inta badan ay dhaqdhaqaaqyo kala duwan ay ka wado Itoobiya duleedka magaalada Beled Xaawo. Haddaba wixii warar ay ka soo kordhaa ciidankan la keeni doono Soomaaliya ee Masar, haddaba wixii warar ee ka soo baxaa ee ciidamadan la keeni doono Soomaaliya iyo sidoo kale inta badan dhaqdhaqaaqyada ka socda gobol Gedo ayaa halkan idinku soo gudbin doonaa ay saaxiibayaal. bartaan mareegta ee Facebooka ee follow dhaho si ay u noqotid daawadaha koowaad oo warbixinada aan halkan ku soo gudbinno u noqdo mid joogto u helo.